jaranjarta cirka lagu tago ee aan meelna haysan bal mucjisadan eega dalxiis mise isdaldalid hal tallaabo markii aad kor u sii baxdaba xagga sare markii aad sii taftaba in yar kolkii aad hore u sii socotaba cabsida iyo wadna garaacaaga ayaa sii siyaadaya waa jaranjaradii lagu kori jiray dabaqyada ee xagga sare lagu gaari jiray oo keligeed cirka horay ugu sii socota hawada sarena kor loogu taagay sidii yoo la isleeyahay cirka miyay rabaan in ay soo taabtaan waxaad ku qasbanaan doontaa inaadan hoos eegin si aan khalqal iyo jahawareer kuugu dhicin jaranjarada ama sallaanta cirka u sii socota ma jirto wax dhinacyada ka haya haddii ay dabaylo ay dhacayaan waxaa la arkaa qofka miisaanka fudud inuu halkaasi uu ka duulo kabaha dhaadheer dad u qaatay ayaa jira laakiin kuwaasi waa kuwo u bartay ayaan lagu halligin marka aad halkan aad ku cusub tahay waxaa buro sidaa haddii aad dacas aad ku fuusho waaba haddii aanad calaacalaha dhigan oo kabaha isku aamini waayeen cagacadaantana ciirsi ka dhigan humaaga hoos kaaga muuqda waa magaalo iska dhan ilayn adigaa cirkii xaggaa sare u tafaye buluugga kuu muuqda waa hawo maran iyo cagaarkii dhirta dhulka ku taal oo isku ragay midabka buluugga ah fogaanta iyo masaafada uu dhulka uu kuu jira dartii in aad kor u sii socoto waa howlgeysanimo dheeraad ah u baahan jaranjartan waxaa laga sii dul taagay buurta loo yaqaano fogsi ee dalka shiinaha waa gobolka bartamaha dalkaasi ku yaala ee Zhengzhou horay ayaan u maqli jiray sheeko xifaale iyo kaftan ah oo beel ka mid ah beelaha Soomaalida la yiraahdo awrkii cirka ayay cid u dirteen hadda waa beel degan dhulka uu joogiisu uu sareeyo si la mid ah amaba soo shabaha sida uu maanta shiinuhu uu yeelay shiinihii ayaa jaranjaro cirka u dirsaday talow shiinuhu ma beeshaas buu koobiyeeyey mise waa uu ku biiray bal adba dherarka jaranjarada la yaabka leh waxa ay cirka ay hore u sii gashaa 25,458 cagood buurtu joogga heerka badda waxa ay ka sarreysaa ilaa iyo 5,000 oo fiid goobtu waa xarun leexsatay dareenka indhaha iyo dadka jecel dalxiiska gaar ahaan inta ku falan meelba meesha ay ka halis badan tahay kana khatar badan tahay dadka qayb ka mid ah waa u bareeri waayeen jaranjaradan cad ee cirka heehaabaysa waana isku aamini kari waayeen ilaa uu qof kale uu kaalmeeyo amaba ay weheshadaan mooye iyada oo gacmaha la is haysto taasoo u muuqata walaal ila dhimo laakiin dadka inta badan ku soo noqnoqday lana qabsaday ayaa masawiro la yaab leh isaga soo qaada si ay u tusaan ehelka iyo asxaabtooda dadkaasi qaybtood waxaa la arkaa iyaga oo dul seexday sariirna ka dhigtay jaranjarada cad ee khatarta badan dhismaha jaranjaradan howlo adag ayaa laga soo maray waxaa ka qayb qaatay farshaxaniistayaal Mareykan ah kana yimid magaalada Oakland ee gobolka California qayb ka mid ah ayaa ku dhimatay mar uu dab u ka kacay halkaasi dadka laga diiwaan galiyay halkan ee ku dhintay waxaa tiradooda lagu sheegay in ay gaarayso ilaa iyo 36 qof dalka Austriana buur dherarkeeda la gaari waayay ayaa loo sameeyay jaranjaro hawo maran dhex socota oo uu qofka uu ku tagi karo xagga sare inkasta oo ay labada jaranjaro ay kala duwan yihiin buurta dheer ee xariga lagu tagayo waa muuqaal ashqaraar leh oo aad looga fajacay sallaanka Austriana lafteeda ayaa dalxiisku maalin kasta ay tagaan si ay mucjiso ay u dhigaan anigase waxa ila sii yaab badan tan shiinaha oo aan meel bahaysan maxay adiga kula tahay waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan Bulqaas Media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka Bulqaas Media hanaga ilaawin inaad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday sidoo kale hanaga ilaawin in muuqaalkan aad share garayso oo asxaab badan aad la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasina ay wax uga bartaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska aad baad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu